ديدا حالة إيو شعبيرانو وذا تيرا دمان ديبتا نعب لها يحمو الشعب لان كودح بري نوغان دوغا مذوغو كدوغو بارانيو هدفتيمو رانكا بري عربيو دلحيس لذوغ إدا حقي بلان إدا وي قردو داري قندلا يدوب أي العرميو يروي دمو دلكنا بدو تالي وسو دوي يوسو دوي دلكنا بدو تالي وسو دوي دحمو شعب بلان ودح بري نوغان دحقي بلان إدا وي قردو دهر إيا قندلا يدوب أي العرميو يروي دمو دلكنا بدو تالي وسو دوي يوسو دوي دلكنا بدو تالي وسو دوي فغالو يمدو إنا سودا وينا سافرو جدا مالي أبهير فغالو يمدو إنا سودا وينا سافرو جدا سيناريو عدالة سافر عند ماني سودا وينت دولة سو مقدس معهم سيناريو عدالة سافر عند ماني سودا وينت دولة سو مقدس معهم صومالي مسونا قعمنا هايس خبصنا ودنكينا ديسنا صاحيقا مكيناي صومالي مسونا قعمنا هايس خبصنا ودنكينا ديسنا صاحيقا مكينا guddoomiyihii hore ee gobolka bari mudane cabdisamed maxamed galan oo hogaaminaya cutubyo ka tirsan ciidamada kacdoonka gobolka bari ayaa soo gaaray degmada Carmo ee gobolka bari soo dhaweynta lagu sameeyay guddoomiyihii hore ee gobolka bari degmada Carmo ayaa waxa ka qayb qaatay guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka bari kuwaas oo isugu kala yimid deegaano fogfog oo ka tirsan gobolka bari cuqaal waxgarad dhalinyaro aqoon-yahano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka bari soo dhaweynta kiis guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed maxamed galan soo dhaweynta ciidamada guuto bari ee uu hogaamiyo cabdisamed maxamed galan ayaa ka bilaabatay deegaanka Jingada halkaas ay ku soo dhaweeyeen boqolaal qof waxaana intaasi kadib guddoomiyihii hore ee gobolka bari uu sii tallaabay deegaanada Ceel Daahir iyo Carmo halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay ex guddoomiye cabdisamed maxamed galan iyo ciidamada uu hogaamiyo ayaa muddo 9 bilood waxa ay khilaaf uga maqnaayeen dawladda Puntland iyagoo ku sugnaa deegaanada bariga fog ee Puntland kadib markii ay gaareen degmada Carmo ee gobolka bari ayaa goob fagaara waxa ku soo dhaweeyay waxgaradka iyo culimaadoodinka waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin imaanshihiisa degmada Carmo ee gobolka bari mudane guddoomiyihii hore siyaasi cabdisamed maxamed galan mudane guddoomiye adiga iyo waqtiga ballaaran oo aad hogaaminayso ku soo dhawaada degmadiinni ku soo dhawaada dadkiinni oo idin sugayay idin taagan idin heelan soo dhaweyntan quruxda badan ay idin sameeyay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timaadaan dadkiinnina u timaadaan waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa isu imaatinkan ka dhacaya labada daraf dawladda iyo jamhadda uu hogaaminayo mudane galan waanu soo dhaweynaynaa
aad iyo aad baan ugu rajaynaynaa inay ku dhammaato sida magaranaysaa wanaagsan iyo sida heshiisku u dhacay iyo sida magaranaysaa carmada isugu yimi aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa labada dhinacba aad iyo aad baan sidoo kale odayaashii iyo dadkii hawshaan ka soo qayb qaatay iyagana aad baan ugu hambalyaynayaa dhammaan dadweynaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada aad baan ugu soo horeeyay u hambalyaynayaa maadaama ay ka qaateen hawshaan qayb libaax soo dhaweynta jamhadda uu hogaaminayo dhammaanteen baa maqaayidka hogaaminayo cabdisamad maxamed gallan guddoomiyihii hore oo siyaasiga ruugcadaaga ah iyo maaragta ciidanka iyo shacabka inta meesha isugu timi dhammaan waxaanu soo dhow mahad celinaynaa waxaanu leenahay marka u horreeya guddoomiye ku soo dhowow degmada Carmo iyo ciddii aad kala maqnaydeen sahankii horseedkii iyo raggii kaleeto oo maaragta aad wada shaqaynayseen iyo intii adiga maaragta haatan shaqaynaysay oo nooc kasta lahayd oo maanta halkaan kugu soo dhowaysay waxaan leenahay ku soo dhowow waxaynu ku wada shaqaynay isugu midnimo weyn midnimada ha la adkeeyo haddaan midnimo la helin waa inaan isku xiraan waa inaan wada shaqayn waa inaan isdhegaysan midnimo wax jiri maayaanin waxaan leenahay warwaaqada iyo gobonnimada aynu gaarray ha la adkeeyo aad iyo aad wakhtigaa gaaban difaac bay kaga jireen dalka kama maqnayna waa u maqnaayeen waa u hambalyaynayaa gubernatorihii hore cabdisamad maxamed gallan iyo ragga uu hogaaminayo odaga u yahay waxaan leeyahay insha allahu waa guul soo hoyatay waxaan leenahay ku soo dhowaada magaaladiinni aad muddo uga maqnaydeen dalka amnigiisa iyo nabaddiisa iyo horumarkiisa waxaan kale intaas leeyahay dadkii idinla shaqaynaya waxaan kale marlabaad saakana u hambaliyeeyey guddigii guusha soo hooyay oo nabadaynta ka shaqaynayay oo la shiray madaxweynaha oo kala hadlaayay masaaliixda waddanka iyo dadka kala hadlaayay cabdisamed maxamed gallan ayaa uga mahad celiyey bulshada gobolka bari soo dhaweynta qiimaha weyn ee ay ugu sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bari sidoo kale waxa uu hambalyo iyo bogaadin u jeediyey bulshada kale ee reer Puntland ee ku sugan dalka iyo dibadiisaba waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida sharafta leh oo gobonnimada leh oo quruxda badan oo aan loo kala harin maamul iyo shacab oo naloogu soo dhoweeyey degmada Carmo iyo deegaanada hoos yimaada waa ka mahad celinaynaa maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin maalmihii aanu soo marnay nooga duwan waa maalin ku qormatay qalbigayaga iyo jirkayaga sida quruxda badan oo sharafta badan oo dadnimada leh oo aan loo kala harin oo diyaargarowga buuxa uu ka muuqdo oo saacadaha badan minacda iyo dabaysha iyo qorraxda loo taagnaa si naloogu soo dhoweeyo magaalada aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa in allaale intii ka qayb qaadatay guddiyadii kala duwanaa guddoomiyaha degmada oo horgalo ama hormuud u ahaa iyo dhammaan intii la shaqaysay waxgarad iyo akhyaar gabdha iyo rag aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa dhammaan in allaale iyo intii bannaanka u soo baxday iyo intii taageertay soo dhowaynta tanna aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaannu sidoo kale si gaar ah aanu ugu mahad celinaynaa gabdhaha iyo wiilasha hiddaha iyo dhaqanku uu ka muuqdo oo sharafta iyo quruxda dhaqankeedu muujiyey iyagana si gaaraan ugu mahad celinayaa iyaga iyo intii diyaarisay oo hawshaa kala qayb qaadatayba aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaannu sidoo kale fursadda tan aanu uga faa'iidaysanaynaa inaannu ugu mahad celinno waxgaradkii iyo cuqaashii muddada dhowrka bilood ahaa garowga u fadhiyey hawsha tan laysugu yimi oo aannu haddeer u nimi in ay dhammaystirmato muddada faraha badan u fadhiyey iyagoo danahoodii iyo xaafadahoodii iyo guryahoodiiba uga maqnaa dantaa guud aad baannu iyagana ugu mahad celinaynaa waxaannu sidoo kale aannu u mahad celinaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee ka qayb qaatay adkaynta iyo amniga iyo in ay hirgasho kulamada tan iyo soo dhowaynta tan
iyo kuwa dambe oo xigi doona inay hirgasho saraakiishii iyo ciidamadii ka qayb qaatayna aad baanu ugu mahadcelinaynaa. waqti badan baynu isu heli doonaa maadaama aad waqti badan taagnaydeen milicda iyo qorraxda. waxaanu rabnaa inaannu idiin turro. waxaad tihiin dadkii aannu jeclayn. waxaad tihiin kaydkii aannu ku xisaabtamaynay. ma rabno inaannu idin daalinno. ma rabno inaannu macaankayaga mar wada leefno. aad annagoo turid badan iyo idiin hayna inaannu idin dhaqaalayno. waxaannu rabnaa inaannu wakhti fara badan aanaan idinka qaadan. shirar badan baynu yeelan doonnaa. kulamo gaara iyo kuwo guudba waa aynu yeelan doonnaa. qaybaha kala duwan ee bulshadana dhammaan waxaannu diyaar u nahay inaannu si gaara iyo si guudba aannu ula kulanno, inaannu talooyinkooda qaadanno, inaannu xogtooda iyo xaaladoodaba aannu dhegaysanno. diyaar baannu u nahay. waana waxyaabaha aannu halkaa u soo marray. waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadda tan qaaliga ah. sidaan sheegay maanta waa maalin taariikhiya. waxaan rabnaa wanaaggii iyo sharaftii lagu gaaray maantay oo maalin taariikhiya oo wanaag badan la gaaray, kuwo badanina ay ka dambeeyaan. waxa lagu gaaray waa midnimo. waxa lagu gaaray waa isu tanaasul. waxa lagu gaaray waa isu turid. waxaannu rabnaa in la ilaaliyo midnimadii. waxaannu rabnaa in la ilaaliyo isu turiddii. waxaannu rabnaa in la ilaaliyo wixii wax la isugu ahaan jiray oo dhan. mar labaad iyo mar saddexaad bahda meediyahana anoo salaamaya dhammaan inta codkaygu uu gaarayo oo aan u suuragelin inay ka soo qayb galaan soo dhowaynta tanna salaamaya. waxaan dib ugu celinaya microphone. soo dhaweynta cabdisamed maxamed galan iyo saraakiisha ciidan ee uu hogaaminayo ee muddada khilaafka uga maqnaa dowladda Puntland ay ahayd midii ugu ballaarnayd ee abida lagu sameeyay deegaanada Puntland. waxaana maalinta berrita la sugayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo wada hadal uu ku dhex mari doona isaga iyo cabdisamed maxamed galan iyo saraakiisha ciidan ee uu hogaaminayo degmada Carmo ee gobolka Bari. waxaana sidoo kale wada hadalkaasi qayb ka noqon doona waxgaradka iyo aqoon-yahanada gobolka Bari.